asalaamu calaykum daawadayaal soo dhowaada mar kale waa wararkii caalamka ee aad kala socoteen alool media t v waa wararkii labaad waqti sheegtu waxay taagan tahay 5 sebtembar 2020 wararka caalamka ee aad barnaamijkan qaybtan ka daawan doontaan haddii allah awoodda leh idmo waa ciidamada Mareykanka iyo Ruushka oo hawada sare ka wada daandaansi khatar ku ah amniga guud aqalka sare ee dalka Itoobiya oo cod qaaday iyo gobolka Tigriga oo si xun uga xumaaday iyo waliba idaacadda BBC-da oo dib u habeen lagu sameynayo taasoo sababi karta in wax bedel weyn lagu sameeyo qaababkii hore ee looga bartay daawadayaal mar kale soo dhowaada aynu ku bilowno aqalka sare ee looga arrimiyo dalka Itoobiya ayaa cod qaaday waxay ku xaqiijiyeen codkaas in doorashada ka dhacaysa gobolka Tigriga bishan Sebtembar 9keeda in uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn codkan ayaa cabsi weyn laga qabaa in uu noqon karo bilowgii dhamaadkii midnimada Itoobiya qoraalkan ay qortay warbaahinta BBC-da ayaa lagu sheegay in dowladda Ingiriisku ay hay'adda samafalka ay la wadaageen in ay isu diyaariyaan ka howlgal ballaaran hadii dhaco colaado iyo dagaalo ka dilaaca dalkaas Itoobiya dhanka kale Getachew Reda oo ah afhayeenka u hadlay ururka Tigriga People's Liberation Front ama TPLF oo ah ururka maamula waqooyiga gobolka Tigriga ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay doorashadani ka dhacayso gobolkooda si kasta oo dowladda dhexe isugu daydo in ay calqaladayso amaba ay ka joojiso gabi ahaanba Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hore seetada ugu dheereeyay siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka kadib markii uu talada dalka gacanta ku dhigay taas oo uu ku hantay qulubta caalamka iyo bilado nabadeed oo uu ka gudoomay beesha caalamka balse dabacsanaantaas Abiy iyo xukuumaddiisa ayaa sabab u noqotay in ay isku dhacyo beelaysan ay caafiyaan dalka Itoobiya iyadoo goboladu si cad uga hor imaadeen awaamiirta dowladda dhexe khilaafaadka u dhexeeya gobolada iyo dowladda dhexena uu soo batay ururka TPLF oo ah siyaasiyiinta dalka soo maamulayay tan iyo 9meedadii ayaa dabadda ka jooga kana qayb gelin xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ah mid ku samaysan qaab isbahaysi wagaag dhanka kale haddaynu intaa ku soo dhaafno xaaladda Itoobiya wararkii u dambeeyey wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay in ay si degdeg ah u dirtay 8 diyaaradood diyaaradahaas oo ah kuwa dagaalka oo ay ugu talagaleen in ay ka hortagaan 3 diyaaradood oo Mareykanku leeyahay diyaaradahaas oo ahaa nooca loo yaqaan B-52 ahna kuwa sida culus wax u bamgareeya ayaa ku soo xadgudbay hawada Ruushka sida warkaani sheegay waxay ahayd toddobaadkan horaantiisii amaba gudihiisii markii dowladda Mareykanku ay ka hadashay in diyaarad 8 ciidamo military ay hawada kula kulmeen diyaarado laga leeyahay dalka Ruushka kuwaas oo ay sheegeen in ay si xad dhaaf ah ay ugu soo dhawaadeen diyaaradooda kulamada noocan ah ee diyaaradaha dagaalka oo hawada isku calqaladeynaya ayaa ah wax soo kordhaya waxaana dhici karta in ay sabab u noqdaan in halkaas isku dhac uu ka yimaado wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in markan ay diyaaradaheedu galbiyeen inta ay hawada ka saarayaan diyaaradaha Mareykanka balse aanay mar dambe u dulqaadan doonin waxaanay si adag ugu hanjabeen dhigooda Mareykanka iyagoo ku tilmaamay kuwa aan lahayn aqoonta iyo tababarka aan caadiga ahayn ee ay iyagu xirfad u leeyihiin waayahay waxaynu daawada soo gaadhnay qodobadii wararkan ugu dambeeyey dalka Britain idaacadda wararka ee BBC-da ayaa wajahaysa xaalad isbedel kii ugu cuslaatan iyo waqtigii la asaasay sanadkii 1922 sidaas waxaa sheegay Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson
mar wax laga su'aalay lacagta gunnada ah ee warbaahintaasi ka qaadato dadka ku nool waddanka UK. warbaahintan ayaa muddo dheer laysku khilaafsanaa sidii dib u habeen loogu samayn lahaa loogana joojin lahaa lacagta gunnada ah. hadda sida ay wax yihiin waxay guri kasta oo tiifiyaalo ku khasab ah in ay bixiyaan lacag dhan 157 gini oo ka ingiriiska ah sanadkii, taas oo dad badan ka soo horjeesteen doodna ay ka keeneen iyagoo ku andacoonaya in aanay xiiseenba amaba aanay daawanba janalada ay ka soo galaan barnaamijyada BBC-du, markaasna ay khalad tahay in lagu khasbo in ay lacag aanay isticmaalin bixiyaan. ra-iisul wasaare Johnson ayaa sheegay in wasiirka dhaqanka miidiyaha ee ciyaaruhu dhowaan uu soo bandhigi doono qorsho cad oo wax lagaga qabanayo doodaas warbaahinta dib u habeentana lagu samayn doono. hadalka ra-iisul wasaare Johnson ayaa werwer weyn ku abuuray wariyaasha luuqadaha kale ee ka shaqo gala BBC-da, kuwaas oo xogaha hoose sheegayaan in ay noqonayaan qaybaha ugu horeeya ee ku shaqo waayi doona dib u habeenta cusub ee BBC-da. qorshaha dib u habeenta oo si weyn looga dhursugayo gudaha dalka UK ayaa la sheegay saameyn ballaaran in uu ku yeelan doono BBC-da. daawadayaasheena sharafta badan, wararkii caalamka ee barnaamijkeennan intaas buu ku egyahay maanta. tan iyo ilaa iyo mar kale waxa aanu idinkaga tegaynaa amaana allah.